qaab reer magaalnimo ah oo aad u dhaqmi kartid. Waxaan halkan kuugu hayaa dhowr iyo 10 qodob kuwaas oo kuu sahlaya in si reer magaalnimo ah aad dadka ula dhaqanto. marka aad qof wada sheekaysanaysaan ha ku dhihin been baad sheegaysaa ee ku dheh ma hubtaa ama aniga sidaas ilama muuqato. 2 halkii aad qofka dhihi lahayd waxaad sheegayso wax macnaa ma sameynayaan weydii hab kale oo aad u dhigi karta ma jiraa. 3 marka maqaaxi lagu marti qaado hadalban waxa ugu qaalisan ee meesha ku qoran weydii qofka wuxuu idiin wada dooqi lahaa. 4 si qaas ah u dhaleecay qofka si shaaric ahna u amaan. 5 qofka marka uu kula hadlayo telefoonkaaga jeebka ku xareyso. 6 qofka marka aad la hadlayso iska saar muraayadaha ama ookiyaalaha sababtoo ah in indhahaaga uu qofku arko waa qayb ka mid ah wada hadalka. 7 qofna waanaha isaga bilaabin iyadoo uuna ka codsan. 8 qofka marka uu kula hadlayo ha ka dhaxgelin sheekada dhageyso ka qaado wixii ku anfacaya wixii kale oo aan ku anficayna iska tuur adigu. 10 qofka marka aad isla socotaan hadii uu ka bixiyo taksiga ama baabuur raaca marka hore marka labaad adigu bixi hadii aad hayso. 11 qofna ha wicin in ka badan 2 jeer ama ha u dirin fariin ilaa iyo uu kaaga soo celiyo cududaar. hadii uu kugu soo celin waayo waad ka maarantaa ama uusan qofkaasi ahayn qof daruuri ah oo noloshaada aadan ka maarmi karin. 12 iska celi amaahda lagugu lahaa ama deenta lagu leeyahay inta uusan xasuusan qofkii kugu lahaa deentaas sababtoo ah taasi waxay qurxinaysaa sharaftaada. 13 qofka marka uu telefoonkiisa sawir ka tuso u celi adiga oo midig ama bidix midna u wadin sawirka sababtoo ah ma ogid waxa sawirkaas xiga. 14 hadii uu qofku dhibsanayo dacaayadaada kada. 15 ixtiraam kala duwanaanshiyaha fikrada dadka. 16 su'aalaha qalafsan sida maxaad u guursan weyday maxaa sidaan ugu naaxday iyo wixii la halmaala ee aan waxba ka gelin adiga ka daaweydiintooda dadka.